السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا kusoo dhawaada youtube channelka haddii aad halkan ku cusub tahay fadlan subscribe noo sar waxaa maanta ka hadli rabaa Champions League hadii soo eega xalay waxaa ciyaaray Dortmund iyo Barcelona oo Barcelona kusoo baxsatay oo laga naacido laga nixi ay soo baxsatay PSG iyo Aston Villa oo ay si fiican u dheeshay PSG ayadana la geliyay qataata la geliyay PSG sidii oo maaragtay ay yeelisay Liverpool markii round of 16 la soo dhalay wareegga 16aad sidoo hore amal ay ahayn oo maaragtay ciyaartada ay liidatay ay imaaday semi finalka waxa maanta cawga dhelaya Inter Milan iyo Bayern oo la joogo San Siro waxa kale oo dhelaya Arsenal iyo Real Madrid oo waxaa loo ciyaarayaa hometa Real Madrid Santiago Bernabeu marka waxaa intan ka hadlaan rabay gametan oo lagu dhelay Santiago Bernabeu oo dadka dhan bulshada dhan ay isha ku lahayaan oo game of the week oo isha dhan lagu lahayo inaan ka hadla rabaa gametaasita waxa waaye dadka dhan waxay dhahayaan Arsenal waa la balansaday oo maxaan ku dhahaa Real Madrid koronka koray ka daday عين بلارين تدمر ولا أرنايان فالفاديو داي 4 نو بلان بيلينغهام داي 4 نو بلان إن فينيسيوس أوصو حلي بلارين ريال مدريد أوصو حلي سيبايوس أوصو حلي محان كودا استريكو دي كتاكاي جوسولو عياريان كي إسبانيش أو لاستيا وديلاي أوصو حلي أساقانو داي كامباكا نامسين ياي إيو محان كودا أو لا حلي marka haddii aan isla fiirino historyga Real Madrid iyo historyga Arsenal meel u yaala haddii isla fiirino Real Madrid waxa waaya weligood waxa lagu bilaabay oo goolo laga hormaray 3 gool ka badan laga hormaray oo 5 jeer iyadoo dheer haysa iyo Champions League ama cup ka saabsan Europe marka 5 jeer hal mar kaliya ay ka soo laabatay 3 oo lagu bilaabay 4-4-1 lagu qaraacay oo Derby County inay 4-1 ay ku soo qaracday home Derby County ama la aaday home Real Madrid markaas ay ku badisay 5-1 aggregate 6-5 ay ama game sidii ay ku baxsatay afarta kala Real Madrid wala baday xilligaas ay Real Madrid ay comeback sameeyni ay 3 gool ama 4 gool ama ka badan ay ka soo laabaneysana ciyaar Champions League oo home lagu soo qaracay waxay ahayd oo ugu dambeysay 1976 iyaga sita asay iyaga ay sameeyeen sidaas oo Derby County ku bixiyeen afarta kala waa laga badi marka hadii loo fiiriyo waxa ay sameeynayeen waxa manala aha inay sameyn doonto Arsenal inay comeback ka sameyn doonto sidii Derby County amal 1976 amal Arsenal idan isla eegna dhanka difaacshadeeda waxa way Arsenal waxa halka kooxda kaliya oo laga xirin 2 gool ee ka badan ama 3 gool iyo amal ka badan 2 gool laga xiray 3 gool ee ka badan laga xirin waxa ugu dambeysay hal sano 5 bilood iyo 16 biri waxa ugu dambeysay marka kooxda idan sidaas difaac u dhisin oo difaac shub u yahay inkastoo bay maartay ciyaariyaan fiican ka maqan Calafiori iyo Gabriel Magalhaes ay maqan yihiin meelaha inay sameyn doonto adana Real Madrid weligood kama xirin Arsenal hal gool weligood kama xirin marka sidaas ayaa la dhihi karaa Arsenal loo siinaya percentage badan hadana goole oo maaragtay ciyaaraha badan soo falanqeeyo soo predict gareeya ilaa iyo awal hore 20 sano 30 sano ka badan soo predict gareynay waxay siinayaan percentage ugu badan super computer waxa siinaya Arsenal aad siinaya saadash ugu badan Real wala bixinaa lay 90% Real Madrid qaraacisti oo la soo qaraacay lagu soo qaraacay Emiraadka kooxda Arsenal ku soo qaraacday hadii aan gadalo waxay ku noqotay game oo ma aragtay walba oo soo qaadana fanski in waxay leeyihiin rice twice koobar koota rice laba jeer ingili Borussia waxa suuliga sameeyay in ku sameeyay fanski Barcelona oo waxa arkay
ay kana inay soo xirteen fanaanada Arsenal oo Declan Rice fanaanadiisa la soo xirtay la dabaaldegayo leeyahay oh Rice aan kula siiyay saas aan la dhahayo iyo fanski oo magay last game ay dheelaysay Real Madrid iyo Legends may dheelayeen fanski Legends fanaanad Arsenal inay keeneen garoonka ay fanaanad kor u hayaan ay leeyihiin ku dabaaldegayaan Arsenal oo loogan xina marka Allah 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 okay enough said let's take a wax maxay ku Real Madrid Arsenal waxay ku noqotay wax loogan xiyay sidii oo ciyaalkeeri xafad joog amal waxyaalo loogan xiyay soo jiraan waxyaalo noocaas amal wax loogan xina Arsenal ay leeyihiin mag isku naxay amal marka Thierry hata waxa dhahay all Europe clubs fiya maxay ka cabsadaan Real Madrid laakiin Real Madrid waxay ka cabsataa Arsenal inta awga la dheelaa waxa way dadka ugu badan saadaashay waxa la siinayaa Real Madrid arena la dhahayaa balse hadii arena ma qualify gareynaysa leh marka ku adaayo warniyo ka soo hadal game maxaan ku dhahaa ka hadal Bellingham ka soo hadal heblo ka soo hadal wax marka aniga waxa way ciyaariyaan oo maaragtay hebel Bellingham saay Odegaard saay midhay inkastoo Odegaard amal ciyaarahaas liita oo soo waxba ka qabanaynin maaragtay game-tii horata way liitay waxaan lagu baahdey Rice iyo waxa si fiican u dheelay iyo Saka iyo ciyaariyaan kala dheelayna jirta Real Madrid ayadana waxa uu dheelay si fiican ugu dheelay Luka Modric oo si fiican u dheelay iyo Mbappe hata si fiican u dheelay marka ku dhahay war Bellingham iyo maxaan ku dhahay iyo Rodrigo Jack kalkishada ka soo hadal waxaas oo toostay garoonka ay la qabsanayeen marka Arsenal difaac fiican ay leedahay sidaas way mid kale asxaabta waxaan in leeyahay sidaas iyo nabadgelyo waxaan ku darsan lahay maaragtay ciyaaryahan ma falanqeyna waxa waa dad transfer lama joogo oo transfer kama soo hadlay transfer dianda Arsenal hebel ay rabtaa ama laan transfer aan ka soo hadlo wax been ay noqonaysaa because xilli oo transfer lama joogo wax news ki dhinaca soo badan waa ka soo hadlaa ciyaariyaha before ciyaarta ay bilaabinina wixii oo falanqeyn oo ka hayna waa soo deynayna insha Allah ciyaarta markay dhamaata ka dambana waxa waa la soo deynaa insha Allah